madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho salaadiinta oday dhaqameedyada haweenka soomaaliyeed saxaafadda iyo dhammaan dadka halkan isugu yimid oo ay ka mid yihiin ciidamada qalabka sida bombeyda iyo dhammaan shacabka gobolka banaadir waxaan marka hore idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaa farxad inoo ah inaan kala soo qayb galno gobolka banaadir xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay waxaan aad ugu faraxsanahay in aan kala soo qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo aad u arkay iftiinka dowladnimada sida aan maanta isugu nimid sheekh bashiirna uu hore noogu sheegay maadaama ay bil ramadaan ah tahay bil barakaysan waxaan codsanaynaa marka hore inaan kulligeen isu tanaasulno ilaahay barinno dalkeennana aan ilaahay u barinno waxaan codsanaynaa oo kale in bishani ay tahay bishii barakaysneed oo ilaahay ducadeenna uu ajiibayey sidaas daraaddeed walaalayaalow aan kulligeen dalkeenna u wada ducayno sidaan horey ula wadaagnay ummadda soomaaliyeed qorshaha xukuumadda waxaa saldhig u ah qodobo ay ka mid tahay ka guulgaarista xasiloonnida guud ee dalka gaar ahaan sidii loo sugi lahaa amniga waxaa kaloo saldhig u ahaa kobcinta dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqooyin lanana dagaalamo musuq maasuqa sidaas daraaddeed waxaan maanta halkan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo waxqabadka xukuumadda innagoo jirnay 60 maalmood keliya xukuumaddu waxay jirtaa 63 maalmood sidaas daraaddeed waxaan rabaa in idinka iyo madaxweynahaba hortiinna aan ka caddayno maantay waxyaabaha inoo qabsoomay kow xukuumaddu waxa ay bilowday shaqo iyadoo dalka ay ka jirta abaar aad u baahan waxaan bilownay inaan isugu yeerno shacabka soomaaliyeed siday isugu gurman lahaayeen waxay shacabka soomaaliyeed ku guulaysteen keligood inay aruuriyaan in ka badan 5 milyan oo dollar lacagtaasi oo ay dadka soomaaliyeed u aruuriyeen 20 10 boqol waa markii ugu horreysay oo dadka soomaaliyeed ay sidaas u aruuriyaan dhaqaale ay iyagu isugu gurmanayaan taasi waxa ay qayb ka tahay bilowga dowladnimada ammaanada shacabka soomaaliyeed waxaa la gaarsiiyey dhammaan gobollada dalka oo dhan waxaa arrinkaas nagu caawiyey dumarka soomaaliyeed culummada ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee dowladda xukuumaddu 60 maalmood ay jirtay waxa ay ku guulaysatay in qof walba oo u shaqeeya dowladda in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyey mushaarkii uu xaq u lahaa iyadoo aanan helin dhaqaale aan ahayn kanay inta badan bixiyaan shacabka soomaaliyeed waxaa lagu guulaystay inaan xaqiijinno ammaanada aad noo dhiibatiin haddii aad tihiin shacabka soomaaliyeed hadda waxaan bilownay inaan bixinno mushaaraadka bisha shanaad maadaama aan bixinnay mushaaraadkii 4 bilood oo lasoo dhaafay waxaan rajo ka qabnaa in aan awoodi doono in qof waliba uu heli doono waxa uu xaq ugu leeyahay dowladda bilaha iyo sannadaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guulaysanay inaan owdno albaabo badan oo u furnaa dowlad xumo iyo musuq maasuq waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dowladda waxaan dib u habayn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixitaanka kharashaadka dowladda oo dhan waxaan bilownay inaan ka shaqayno sidii la isugu keeni lahaa khuburo nagala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan waxaan bilownay habraac lagu nidaaminayo canshuuraha dalka iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada waxaan bilownay jidkii soomaaliya looga dayn lahaa deynta lagu leeyahay oo dhan 5.5 milyuun oo dollar haddii aan dadaalno
waxaan ilaahay hadduu yidhaahdo arrinkaasi ku dadaali doonnaa in sanad iyo bar gudahood aan ku soo afjarno deynta lagu leeyahay dalka Soomaaliyeed. haddii aan ku guulaysanno waxaa inoo furmaya albaabada maalgashiga. in deynta nala ka tirtiro waxaa kaloo oggolaanaysaa inaan dib u yagleelno dowladnimada ummadda Soomaaliyeed. waxaan dowladahan saaxiibka la nahay bilownay inaan kala hadalno sidii aan badeecada Soomaaliya suuq ugu heli lahayn si uu u kobco ganacsiga dalkeenna, dhaqaalaha ganacsataduna uu kor u kaco. arrimaha amniga sida aad ogtihiin hadafka amnigu wuxuu ku salaysan yahay gaaritaanka amni buuxa oo ku baahsan dalka oo idil, bad iyo berri, miyi iyo magaalo, kaasoo sugayana xuquuqda iyo xorriyadda muwaadiniinta Soomaaliyeed. amnigu waa udubdhaxaadka nolosha. waxaan bilownay dargirgiridda sugidda amniga magaalada Muqdisho iyo qaybo kala duwan oo ka mid ah dalka intiisa kale. waxaan bilownay xakamaynta hubka. xakamaynta hubka macnaheedu waxay tahay in la fuliyo qaraarkii ka soo baxay golaha wasiirada, kaasoo ahaa inaan hub waaweyn lagu wada karin magaalada Muqdisho, taasoo aan si fiican u fulinay. xakamaynta hubka waxaa kaloo ka mid ah inaan la wada karin hub sharci darro ah, in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dowladdu astaamaysay keliya, iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darrada ku haysta ay dowladdu gacanta ku soo dhigto. waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaatayn jiray. waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka Soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaq darro ah. arrimaha kale oo xukuumadda u qabsoomay waxaa ka mid ah waxaan dhammaystirnay duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi. waxaa kaloo aan ku guulaysanay in dib loo soo celiyo duulimaadkii habeennimo ee garoonka aadan cadde. xukuumaddu waxay ku guda jirtaa dhammaystirka hannaanka lagu maamuli lahaa hawada Soomaaliya, uuna dhowaan si buuxda haddii Ilaahay yidhaahdo ugu soo laaban doono dalka Soomaaliya. arrimaha wasaaradaha. wasaarad waliba waxay soo bandhigtay qorshaha ay rabto inay hiigsato 100 maalmood oo ugu horeeya iyo sanadka iyo sanadaha soo socda. waxaa la dhammaystiray qorshe buuxa oo ay xukuumadoo dhani ka wada qayb qaadatay. waxaa golaha wasiiradu ku heshiiyeen siyaasad guud oo lagu hagayay dalka iyadoo la fulinayo hadafkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. waxaa la xoojiyey wada shaqaynta wasaaradahoo dhan. waxaa la xoojiyey la shaqaynta adduunka. adduunyada waxaa kaloo aan u sheegnay inaan diyaar u nahay isla xisaabtan labada dhinacba ah, annagana in nalala xisaabtamo, iyagana inaan la xisaabtamo. waxaa dalka intii madaxweyne farmaajo la doortay yimid wasiirada arrimaha dibadda ee Ingiriiska, Jarmalka, ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga, xogayaha guud ee qaramada midoobay, xogayaha guud ee wadamada Afrika iyo madax kale oo aad u tiro badan. taasina waxa ay muujinaysaa rabitaanka loo qabo dowladnimada Soomaaliyeed. safarku madaxweynuhu ku tegay dalalka dibadda waxaa ka soo baxay guulo waaweyn oo wax ku ool ah oo la xiriira kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada amniga iyo dibadhiska dalka. safaradu madaxweynuhu ku tegay dibadda ayaa waxa ay xoojiyeen xiriirka ay dowladda Soomaaliyeed la leedahay dalalka dariska ah iyo dunida inteeda kale. taas ayaa noo sahashay inaan soo celinno safaradii tooska ahaa ee Kenya iyo Soomaaliya. taas ayaa noo sahli doonta in badeeco badan oo Soomaaliyeed loo iibgeeyo dalka dibaddiisa. waxaan ku guulaysanay inaan adduunyada ula shaqaysano sidii horese ka duwan. wada shaqaynta hay-adaha dowladda, wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, iyo wada shaqaynta golayaasha kala duwan ee dowladda oo aad u caafimaad qaba awgeed ayaa waxaan ku guulaysanay inaan dalka u qaadno tallaabo aad u hufan oo ay ka mid tahay in amniga dalka uu ka soo wanaagsanaaday. dadka magaalada Muqdishona maanta ay ku nool yihiin
noloshii hore mid ka duwan. maadaama ay xukuumaddu jirtay 60 maalmood keliya ay noo qabsoomeen arrimo waaweyn oo la xiriira dhaqaalaha, oo la xiriira amniga, oo la xiriira dawlad wanaagga, oo la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa, oo la xiriira la shaqaynta dunida, oo ay muuqato iftiin aad u waaweyn oo ah dawladnimo hufan. su-aashu waxay tahay 6 bilood maxaa inoo qabsoomi kara haddii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay isgarab istaagaan? 6 bilood gudood waxaa bilaabanaysaa inaan si dhaqso ah cadaaladda wax uga qabanno, inaan wax ka qabanno qorshihii lagu gaari lahaa 2020 si qof walba oo Soomaaliyeed oo codkiisa u dhiibto, inaan ka shaqayno xoojinta wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada, inaan ka shaqayno la shaqaynta baarlamaanka si loo ansixiyo sharciyo badan oo muhiim ah oo dawladnimada muhiim ah. haddii ay 60 maalmood intaasi noo qabsoontay 6 bilood waxaan xoojin karnaa ciidamada xoogga dalka ah oo ah sharafta, wejiga iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan sii hagaajin doonaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan. waxaan sii kobcin doonaa dhaqaalaha, waxaan abuuri doonaa shaqooyin, waxaan dhisi doonaa jidad oo aan bilownay haddaba annagoo kaashanayna ganacsatada iyo gobolka Banaadir inaan bilowno dhisidda jidadka magaalada Muqdisho. waxaan dhisi doonaa isbartiibooyin ka waaweyn tan haddii aan maanta isugu nimid, haddii Ilaahay yiraahdo. in maanta aan halkan isugu nimid waxa ay ka turjumaysaa sida uu u hagaagay amniga magaalada Muqdisho. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan dib ugu soo celin lahayn warshadaheenna. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ula wareegi lahayn waxbarashada, una samayn lahayn waxbarasho tayaysan. waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u hagaajin lahayn caafimaadka dadka Soomaaliyeed. waxaan ka shaqayn doonaa inaan ilaashanno khayraadkeenna, gaar ahaan badaheenna haddii Ilaahay yiraahdo. sidaas daraaddeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ku ammaanayaa sida ay noo garab istaageen muddadii ay jirtay xukuumaddu. waxaan u ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay isla xisaabtan, inaan soo hor istaagi doono mar walba si ay noola xisaabtamaan haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan idin xasuusinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan in dalkani uu yahay dalka keliya oo aan leenahay, in dal kale aanan lahayn, in dalkani uu yahay ka naga wada dhexeeya, inay nagu waajibtaa kulligeen in dalkan aan hagaajisano. sidaas daraaddeed waa inaan isu tanaasulnaa, waa inaan shakiga ku beddelnaa isjacayl, waa inaan waddaninimadeenna xoojinnaa sida uu nagu hoggaamiyey madaxweynaheenna madaxweyne Farmaajo. ugu dambayntii waxaan idin sheegayaa haddii ay dawladdu hagaagto in macnaheedu ay tahay in qof walba oo Soomaaliyeed ay noloshiisu ama nolosheedu hagaagi doonto. waa mahadsantihiin. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed